طلع ciidan u tihiin dawladda inay qalabaysatay tayad iyo tababar in gelisay idin soo qalabaysay waxa waaye in si suguno maxay idin siinaa inaad dadkii dalka u shaqeysaan inaad ma dad qaar u shaqeynaysaan ma inaad aniga shaqeynaysaan ma taliyaha maanta ciidanka xukuumadda u shaqeynaysa waxa u shaqeynaysan dalkan iyo dadkan عليهم هدادمن ودكو يغما ديري waxaa saaka askar qurux badan ay hor muuqato qalab ahaan iyo tayo ahaan iyo tira ahaan loo diyaariyay magaciina iyo mansabka aad wadatiin ina ilaalisaan aan kula dardaarmayna sidoo hore uu sheegay xeeralaaliyaha iyo taliyaha horin waxa tii ciidankii cadaaladda iyo garsoorka oo ahaa basic nabadgelyada laguna fulinayo cadaalad idinkii cadaaladda fulinaya hadii cadaalad darro iyo dhibaato iyo buuq nagala sheegto waxa ka dhala kara waa garanaysaan sidoo xeeralaalintu idin sheega ciqaaba ka imaanayso ciqaabta ka imaanaysana waxa waa mid aniga aan qaadanaa ama waa mid adiga aan qaadanayso waxa aad sameeyay magaciina iyo tayadiina iyo ciidanka aad matalaysaan inaad sida aad bishaan moogi inaad dib u dhigtaan inaad ka shaqeysaan ma waa sax magac qurux badan leeyahay gamaadiid waxa qof aan seexan lagu seex yaad ku seexda cadaaladii garsoor aan ku seex horena waa u joogteen haddana ku xoojinaynaa ciidamada qalabka sida waxa u tihiin base-ku cadaaladda iyo sugnaanta saxda ah because wax kasto dhibana ama meeshii mugta dhibka lagu fuli lahaa iyo goobta dhibka lagu ilaalin lahaa idinka dhibanayaal lagu sheekay dad dhib wada ama fawda ah ama nidaam dawladeed ku shaqeynaya idin lagu sheegay maxaa noqonaysi أول واشر فنادن si kalaba inaan sii jibaartaan shaqadiina wax qalad hadda dhalay lama jirto guubaabin iyo garab istaag kaliya waxaan kugu maana xiraalintan hadda kiis idinku soo ogino idama dhihin idinka waa dadka dhibaatay laakiin waxay leedahay waa idin jecel yihiin waxay diidaan meeshi cadaaladda base ka wahad inay ka imaado hadda wax cadaalad darro ah ashan laba shay waa ka jirtaa nin u soo shaqo tagay nin ka shaqeeyo kan ka shaqeeyay ka soo shaqo tagay waxa la inay nidaamka dawladnimada jeclaysiisaan askarnimada jeclaysiisaan dalkii iyo deegaanka u joogan aad jeclaysiisaan waxa ku jeclaysiin kartaa in aad akhlaaq wanaagsan kula hadasho qofka waa dadku isku qalbi maaha qof asoo iska furan imaanaya jiro ina u dejiso akhlaaq ula hadasho wanaag ula hadasho ya waxay gelinay qalbiga haduu xataa xumaan damacsanaa wanaagay gelinay qalbigiisa wanaagaas la rabo inaad ka turjuntaan qas dala ciidan u tihiin dawladda inay qalabaysatay tayad iyo tababar in gelisay idin soo qalabaysay waxa waaye in si suguno maxay idin siinaa inaad dadkii dalka u shaqeysaan inaad ma dad qaar u shaqeynaysaan ma inaad aniga shaqeynaysaan ma taliyaha maanta ciidanka xukuumadda u shaqeynaysa waxa u shaqeynaysan dalkan iyo dadkan ma sida qof geed meesha ka soo baxo taagnaana ma jiro shalay ma jooga maanta ana jooga brin nin kala imaado in bedela aniga geeda nin kasta imaad inaad mugta la shaqeyn karto wax kale meesha aan ka bixinaa jiro nidaamka wadda tali oo sheegay xeeralaaliyuhu kala sareynta si kastoo aan shaqada uga tago macnaheedu maaha inaan ciidanimada ka ruqsas waa inaad ugu ixtiraamtaa sareynta darajada qof kasta oo sarkaala ama asgari kaalan barsaam ka darajo sare ciidanka rabaha aad markuu ku yimaado xishmada kugu leeyahay iyo waajib garaama askarigu wax uu beesho maaha raashin iyo lacag la siinay kaliya waa garaam sida u kala sareysaan kuwa idin imaana sida idin kaga kala sareeyaan ku ixtiraam because waxa joogtay indhihi cadaaladda garsoorka joogteen waa indhihi waa awoodda saddexaad dalka waa cadaaladda oo lagu fulinayo idinka goobjoog ah u tihiin maxaa goobjoog marka laga rabaa aad hadday dishibil wax ma ka imaado hore lagaaga fulaan ninka ku fulaan waa garab taagay hore loo kaaga soo oga marka in wax lagu soo ogo askarta inay amaaniina rabnaa waxyaabihii ka jiray qalaasidii dilka iyo dhibaatada ciidankan lagu sheegin sida aan loogu sheegin wax ka soo foodo ah وانا رمنا إن كلجان أنا سيدا أنا كنا هنا عندما أنا كنا قدام رمنا عيدا جاره أما أنت رمنا دعاء بابكي دلكي وحص مجرى لما عيدا كقلب كسر شرفي كلام اللي قف كسر عيدا كقلب كسر كم دانا والدرجة كاسرة أما ما أنا عيدا ميدا كجوري واقو حكم يا أبو ما أنا كحكم ما أنا إسماعيل كحكم ما أنا أمين كحكم قف كسر الدرجة كاسرة حلو يوهن معناه حل كرسكم حكم وفهم كرتين ولا لا إذن كوا حاسكو حكومة كلا سرين ننكو درجة ما جرو حدا اسكو درجته ما لنا كاهري نمبر كاهري ما هو سيد النمبر هذا اسكو حكومة هدي حتى اسكو درجتين أوامرتي أداء يشغلنا إلى لنا وكو أمانتين شرفي كرامة سوي سن شلي حوا
idinkaa shaqaynaya tayo tababari qalaba in nagula soo kordhiyay sidii la salaamad inaa laba jibaartina la rabaa waana la xoray ciidan Soomaaliyeed badan oo nagala dhaxlo waxaan la soo xulnaa dareemi kartaa akhlaaqdiina waa ilaaliya akhlaaqdiina dishibliinkiina iyo dawladnimada inaa dawladnimada ilaalino oo isku afgarnamo cadaaladana aan bees u noqono iska cadaaladda tiin cid kastoo sarkaal oo Soomaali ah waa ay xukumaa ogaada intaas ay kula dardaarma aad qurux badantiin waan ku faraxsanahay intaan ciidana oo qurux badan oo Soomaali ah oo maanta qabiil iskula joogin inay iskula joogtaan ya intaana farxad noo ah sharafi karaamada Soomaaliya noolaat oo ma santiin